kulanti wanaagsan daawadayaal iyo saaxiibayaalba meel kasta oo joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka toddobaadka iyo Toronto ee telefishinka caalamiga ee Somali Cable oo xilligan idinkaga imanaya stuudiyahayaga magaalada Toronto ee dalkani Canada. daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan lahow anagoo idinku baridinayna hadba xilliga iyo xaaladda aad ku jirtaan. daawadayaal iyo saaxiibayaalba magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan. barnaamijka toddobaadka iyo Toronto hayaan ku qaadaa dhignaa guud ahaanba wararka khuseeya Soomaalida. waxaanuna waraysiyo la yeelanaa haldoorka Soomaaliyeed ee dalkani Canada iyo waliba siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwooda booqashada ku yimaada dalkani. barnaamijka maantana haddii Allah awoodda leh ogolaado waxaad ku daawan doontaan barnaamij ka duwan barnaamijyadii aanu siyaasadda ku gorfayn jirnay oonu kaga hadlayno guud ahaanba geerida isdaba joogga noqotay ee ku imanaysa ubadka Soomaaliyeed qurba joogga gaar ahaan kuwa dalkani Canada. sida daawadayaal iyo saaxiibayaalba la socotaanba in ka badan 100 dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa iyagu naftooda ku waayay siyaabo kala duwan, waxayna taasu xanuun joogto ah biday waalidiinta dhashay iyo waliba guud ahaanba qowmiyadda Soomaalida ee dalkani. haddaba dhalinyarada siyaabaha kala duwan loogu dilay dalkan Canada ayaa waxaa ka mid ah Eebbahay naxariis jannaha ka waraabiye Maxamed Yuusuf Abikar Cali oo uu dhalay samafalaha caanka ah ee Soomaalidu aadka u taqaan ee reer Toronto waa Yow Baby. waxaa lagu dilay marxuumka magaalada Winnipeg ee dalkani Canada oo uu sida aan filayo u aaday dana u gaara iyo waliba arrimo la xidhiidha shaqooyin. waxaan waraysan doonaa aabbaha dhalay wiilkaasi Yuusuf Abikar Cali Yow Baby. wuxuu in badan ku jiray guud ahaanba uu adeega bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Toronto, waxayse iminka geerida naxdanta leh taabatay qoyskiisa, waxaana gabi ahaanba ka tacsiyay shacabka Soomaaliyeed oo kala harin. Yuusuf Abikar ku soo dhawo marka hore telefishinka caalamiga Somali Cable barnaamijkiisa toddobaadka ee Toronto. walaalkay Maxamed waan dhawahay. waa hagaag marka ugu horeysa anoo ku hadlaya magaca iyo maamulka wariyaasha iyo farsamayaqaanada injineerada iyo guud ahaanba bahda Somali Cable waxaan kaaga tacsiyeynaynaa geeridii naxdinta badnayd ee guud ahaanba qowmiyadda Soomaalida ee dalkan Canada taabatay ee ku timid wiilkaagi Maxamed Yuusuf Abikar Cali oo dhawaan lagu aasay magaalada Toronto. dareenkaagu muxuu yahay? inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. 26 bisha August ayay ahayd markii wiilkayga lagu xabadeeyay Winnipeg, Manitoba, Canada. maalinnimadii ku xigtay ayaan halkan ka dhaqaaqnay aniga iyo reerkay. markii halka aan tagnayna waxaan la kulanay dhaqaatiirtiisa iyo asigii, waxayna noo sheegeen in ay adag tahay inuu sii noolaado. maalinnimadii ku xigtayna ilaahay wuu dhintay. Maxamed ilaahay u naxariisto. runtii dareenkeenu wuxuu ahaa dareen aad iyo aad runtii u adag maadaama aan joognay meel aan aqoonin, aanan weligeen tegin. haddana alxamdulilah ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogto, dadkii aan meesha ugu tagnay Soomaalidii ayaa ahayn door Soomaali aad noogu gurmatay. muddadii aan joognayna wax walba oo annaga aan u baahnayn runtii na garab istaagnayd ilaa aan halkan ka nimaano. waa hagaag dadka Soomaaliyeed intooda badan ee waalidiinta waxaa gadaashooda looga hadlaa, si dhab ah ugama hadlaan waxa kalifay wiilkaas geerida ku timid iyo siyaabaha uu ku geeriyooday. intaba xanuunkeeda ayay leedahay, balse waa laga maarmaan kuwa kale ee ubadka yaryar ku korinaya dalkan inay ku waanan qaataan. markaad ka hadlayso oo sharaxayso wiilkaagii ee bahay naxariisa ka waraabiya Maxamed, wiil sida ayuu ahaa? bismillah. runtii wiilkayga wuxuu ahaa 20 sano jiray. 21 June 18 ayuu galay. waa 20 jir. waa wiil yar oo hadda maaragtay adduunka u soo baxayay. waa wiil aan maaragtay magaaladan Toronto ku noolaa 2 week ugu dambeeyay mooyaane intii kale wuxuu ahaa wiil la jooga hooyadii iyo aabihii. wiil aanan wax record ah ama criminal record waxba aan lahayn. wiil familigiisa la degan oo maasha Allah annagana kolley magaalada waa degannahay. wiil wuxuu ahaa runtii gacan waalid ku jiray. wiil wuxuu ahaa reerkiisa la joogay.
muddadii ugu dambeysay labadii week ugu dambeysay weliba 6 beri ugu dambeysay 6 beri ayuu joogay magaaladan Manitoba maalintii lixaadna waa lagu dilay meesha 5 cisho ka horna wuxuu ka kireystay asaga iyo wiil saaxiibeen guri si ay nolol maalmeed ugu sameeyaan meeshaas ay shaqooyin iyo wax ugu rasaan laakiin Maxamed Yare ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahaa wiil Soomaaliyeed oo ka dhan wax dhib ah وهاجك أيو بيبي إن بدن أيادو سو جوجتي مدوين كان عن صدم كسنة كيرين دلكن كندا جوجتي أساس بدن باك قيب قاعدتي أو لجو دوغي أو بد صوماليد أو لجو صوت طبيعي أو ودن كان كندا التكنولوجيا ده علم جو بميل وناكسن أدون كجديرة وجدد والدين تو أهيد إن أي علمه هو كيف فائدة والد أهان سدا كيرك أمرك عنقي أصوب بربارسي وناجي أنت على أجي هيكسي اللربتي أتكويدو محادري ميسا ولا لا الحمد لله رنتي ساشكت واي ويلير وأتسو كرسي ووليبا ميلان عدنا وقفنا وسن كأقونين لقد لي وليبا أنا وحي إتابتي مركي عن تجي جورجي لقد لي جورج أباب كيسة ماشي لقد لي ماشي عصو مال عدنا وعدنا جوجن هذانا مركا إسويديسو واي وحنود عيان هذانا الحمد لله وحي إلهي كينا معركتي إلهي سبحانه وتعالى وغفور رحيم وحو كيني قدرتيس أي أنت كويكيد ماشي إنو تاغو وكل انتو أي ولشيسا انت سأي كوكوبنيد وان أقلاني وان أقبلني قدرتي إلهي سبحانه وتعالى دادك نن وحي أجوغان إلهي قفر ومعلم أيو دمانا ماشي ودمانا أيو يسيدو ودمانا ووح معركتي إلهي سبحانه وتعالى وأقياي وين تابتي وعليس هدانا الحمد لله قفك مركي مسلمين وإنه إيمان كاسلية إلهي ونحرس وهذا إيو بيبي بقول إن كبدان إن كستونا ترسح عنك صحافظهان إن منك أنا هلك كشيء كرين أو أبد صوماليا ذا أي تورنتو إيه كان ذي بالجود لي ولدت كصوماليا ذا وحى موقع إن أين الدرين براروج لموتشينين إيو كوكلا قيبسن ميلول بقولناش أي كم تهاي way ku taabatay kuwa fara badan way taabatay balse waxaan wareysigeenu ku wajahan yahay in aynu dadka Soomaaliyeed xal u raadino sidii ubadka Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa maxaad kula talin lahay dadka Soomaaliyeed in ay ka bilaabaan maxamed runtii ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto waa dad aad u fiican caruurteenana waa caruur ma sha Allah caruur fiican waxaan leenahay caruur badan oo maanta dhaqaatiir ah waxaan leenahay caruur badan oo looyar ah dhinaca xun markasta in laga hadlo dadku markaad aragto waxa xun bay arkaan laakiin ma arkaan waxa fiican laakiin waxaan arkaa aniga in ummadda Soomaaliyeed ay tahay ummad nadiif ah ummad ka fog xumaanta iyo dhibka ayna leedahay arday badan iyo caruur yar yar oo meelo badan oo hiigsi leh maanta ka dhex muuqdo haddii aan leed ma aragtay dawlad haddii aan leed siyaasad haddii aan leed wax walba sidee looga bixi karaa dhibkan taagan ee Soomaalida joogtada u ah maalin kasta oo dhaco habkee looga bixi karaa waa su'aasha halkan u fadhino aniga runtii way igu cusub tahay arintan oo 2 week ka hor ayaa dhibkan dhacay waxaan jeclaan lahaa inaan raadino hab aan uga badbaadi karno oo qof kale oo Soomaaliyeed uusan dhibkan nooga dhicin oo dhib noogu ekaado oo Maxamed Yare noogu ekaado oo Maxamed wax ka dambeeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maaragtay aan ka magan galno Ilaahayna nagu amaansado waa dareemi karaa 126 qafood oo Soomaali ayaa dhimatay oo waxna la salfo gareen dad baa la dilaa calaamado jaala meesha lagu xirxirtaa istoolooyin iyo baajal la soo baxaa dad baa la interview gareeyaa cid dambo isweydiisa ama ka hadasha ma jirto suspect Soomaali qaf Soomaali la dilay oo qaf loo soo xiray ma jirto ma anaga aan daba gelin ma anaga systemkii wadankan aan wali la qabsan oo baqayna ma anaga wax naga qaldiin waa in dadka ma aragtay detective-ka ama homicide-ka dadka kiisaska caruurteena hayaan inaan daba galno waa inaan ka hadalno waa inaan ka dhiidhino la caruurtan waa dhalnay umaanankeen meesha in xabal lagu dhufto oo calaamad jaal meesha lagu xirto lagu kala tago waxaan rabnaa dadkan dilay in loo soo xiro waxaan rabnaa intii Soomaaliya la laayay dadkii dilay in la keeno waxaan rabnaa dhibkan annaga nagu socda ee ma aragtay maalin walba na haysto inaan ka hortagno ummadda Soomaaliyeed meel bay joogto waxaan dhihi lahaa dad fiican aan nahay alxamdulillah
waxba yaanan maaragtay ma jirto hooyo Soomaaliyeed oo caruurteeda daayacayso waxba yaan hooyooyinka la eedin waxba yaan aabayaasha iyo meelaha ay fadhiyaan la eedin dadku waa dad fiican wixii naga qaldan waxaan weydiisanaynaa in anaga isku nimaano ilaahayna uu na garab galo wahagaag balse markaad fiiriso wax ka qabasho la'aanta geeridaas dilku sababaya ee ubadka Soomaaliyeed ku imanaysa ee ku wajahan xagga ciidanka nabadgelyada ee booliska Soomaalida dalkani ma ku qatana dalkani wasiiray leeyihiin xildhibaanay leeyihiin meelo waaweyn bay golayaasha looga taliya dalkan kaga jiraan maxaa diiday ayaad oran lahayd bacdama aad arintan iminka adiga kula soo daristay in ciidamada boolisku ay xil gaar iska saaraan baaritaanka ubadka Soomaalida la leynayo su'aal meesha ku jirto anaga markii ay runtii noo yimaadeen qolooyinkan homicide-ka oo dilka wiilkayga qaabilsana inta hadda leedaan ku niri xataa waxaan ku niri maartay baadigeena nasiya waxba noo baarina because this waa hore u dhacay waa timaadaan waxbaad qorqortaan dib damba nooguma soo noqotaan marka sheekooyina hore u aragna waaye wiilkayna nasiya waad mahadsantihiin hadal dheer kadib waxay noo sheegeen in Winnipeg Manitoba ay ka gedisan tahay Toronto ayna raadin doonaan ayna ku raad joogaan dadka dilay wiilkan marka ayagana taas ayagan u deynaynaa waa ka warsugaynaa laakiin ma aha in looga xari doona ma aha waxa waaye shaqadooda ayaa waxay ah inay qafkii dambigan ka galay ay keenaan cadaaladana loo horgeeyo marka waa runta Maxamed oo sida ay sheegtay waxaan leenahay wasiiraan leenahay waxaan leenahay xildhibaano insha Allah waa la hadli doonaa wasiirkeena runtii Ahmed Hussein iyo Faisal iyo dhamaan community leaders ko dhan waa la hadli doonaa in wax laga bedelo oo caruurtan maaragtay dilka iyo dulmiga la daba taagan yahay dadkii geystay in la soo helo ayagana loo helo nidaam ka duwan nidaamka dhimashada ah ayaguna ay noqdaan awlaad maaragtay qeyr qabta oo dantooda wahagaag waxaad sheegtay in ay booliska Manitoba idin sheegeen inay ka duwan yihiin kuwa Toronto geerida Soomaalida ubadkooda waxay ku badnayd gobolka Alberta Edmonton iyo magaalada Toronto wax hal oo laga gaarina ma jiro xiriirka ilaa iyo iminka idin dhaxeeyo qolyaha gacanta ku haya baaritaanka geerida Maxamed Yare ku timid intay la egtahay والله هذا وقتي ووقت إسكا عصب وحير لو بيكوري أرنتان دعدي حرير آد وفي عم بنا قد حيا وين الله صاحب لان كل مركي قدام بيسو حين وشيء إن يجن قديس إن الله صاحب الدونان أنا جن والله هذا أنا جن الشقة أنا جن نفتر كان وإنان وعنا أون حريرنا أون رادنا دت كان سيد دت كلا كان هديك لو حين قنيسة أون واحد سيدي كوي هروك كلا لوجا عم سوكره لكن حرير إلا حد ما دام أرنتن أرن وجب عصبتها حرير وحنا قد آدم فيها يو بيبي ومركاد فيرسو قحيتان كدتك الصومالي ذي كوي مادين وضمده قربها وحا سبب أها وح قبيلة ذي صلقتها أو صومالي ذا لحظة كذا الشيء ولين تي أيا كموقت قربها مساجد دي أيا لوك الدوية هاي قوبيه dadka loogu adeegayay ay dawladdu kharashadeeda bixinaysa afka qalaad lagu yiraahdo community-yada ayaa lagu kala qaybsan yahay goorma ayay noqon doontaa Soomaalidu mid baraarugsan oo danteeda qabsata sida qowmiyadaha kale ee Soomaalida maxaase kula talin lahayd shacabka Soomaaliyeed oo la hadlaya fursadan qaaliga horta anoo ka faa'iideysanayo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu mahad celinaa runtii sidii ay ما أردت مددي تعسيد نوتالي نوجا ورقبين سيدي أي نوجو جرمدين دمان شعبية رير مانيتوبا وينيبيغ يا دمان بولشوين تا رير تورنتو أنون كلاسارين دمان تود رير تورنو سيدي أي ما أردت دمان تود سيدي أي وجو جرمدين كينستي ويل كودا دوغستي ويل كودا كقرقب سيدي نوجا ورقبين as a family runtaas fursadan qaaliga idaacada aan fadhiyo waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto reer Toronto iyo reer Winnipeg waad ku mahadsantihiin sidii aad nooga warqabteen dhamaan idaacada Soomaalida dhamaan wariyaasha meel kasta joogaan dadkii nala soo xiriiray dadkii Soomaalinimada noo muujiyay dadkii wax walba aan u baahanahay nala garab taagnaa waxaan leenahay
waad mahadsantihiin sidee loogu gudbi karaa sidee dhibka xigo sidoo noqon karaa fikrad ahaan maxamedow aniga waa fikirkayga waan ku qaldanaan karaa waan ku saxsanaan karaa dadku way jecel yihiin inay dhibka ka hadlaan way jecel yihiin in la garab qabto way jecel yihiin in wax la saxo laakiin waxaa aniga ila tahay in dad badan ay hadallo aanan ku habbooneen ay isdhex wadaan qofka markuu dhibka ku dhaco wuu jecel yahay inuu dhibka ka hadlo qofka marka caruurta xoogaa ay ka xumaadaan wuu jecel yahay inuu la sheergareeyo dadka kale haddana waxaa celinaya waalidiintii waxay isleeyihin haddii aad dhibkaaga ka hadasho ama heblaayo iyo hebel ay wax uun ku yiraahdaan marka arinka way ka weyn tahay arinkaas haddii qof walba uu isqariyo uu aamuso maalinba mid la dilo maalin mid kale la baxo waxaan naqanaynaa dad aan meel lagu sheega lahayn marka waxaan dhihi lahaa dadka soomaalida daayna waan sheegay caruurteena ma xuma laakiin 35 cunug ee caruurteena ku dhex jirta ee ishaysata ee xaafad isku weeraraysa ee tviyada inta haweenada xirtaan tv soo duubanaysa in ummadda laga dhex saaro in wixii jiro runta ah laga hadlo dadku ma wada xuma hadda waxaa jiro group Soomaaliyeed oo gabdho Soomaaliyeed oo ayagana caruur laga dilay oo u damqaday oo gooro u istaagay ayagana way nala soo xiriireen inaan ayagana la xiriirno groupkaas aan xoojino wixii aan ummadda u qaban karno communityada kala daadsan inta dhinac iska dhigno bal gabdhahan yar ee Soomaaliyeed ee hadda ay Shamsi Ibrahim Booliisi hogaaminayaan inaan ayagana la xiriirno oo aan la shaqeyno wixii u baahan in la saxo aan saxno caruurteena mar labaad aan ku celiyo caruurteena ma sha Allah caruur xun ma aha waa caruur aad iyo aad u fiican laakiin waa qasab sodanka kale ee aan aragno ee aan wax ixtiraam ah waalidiinta u haynin in dadkan laga dhex saaro ee dawladda lala shaqeeyo mar walbo askarta waxay yiraahdaan lama shaqeysaan horta askarta waa ayaga shaqadooda inay shaqadooda qabsadaan qofkii qof dilay ay keenaan laakiin anagana waxaana laga rabaa wixii aan ognahay aniga hadda wiilkayga la dilay wax walbo aan ognahay askarta way haystaan wax walbo oo shakina gelinayo cid walbo la socday cid walbo raaci jiray cid walbo halka la joogay askarta way haystaan waxay u fududeynaysaa meeshii ay u dhaqaaqi lahaayeen marka intaas at least intaas yar aan ma aragtay askarta kula shaqeyno inta dambe ayaga dhamaystirnaa waxaan gaari doonaa ma sha Allah waxaa jira markii wiilkayga xabadda ay ku dhacday asoo meesha yaalo dad diriska intay u yimaadeen inay CPR siiyaan inay 911 u wacaan oo dad aan dhahno waliba gaalo anaga dad muslimaana waa ka duwanahay waa inaan isku gurmanaa waa inaan dhib haddaan aragna ka hadalnaa waa inaan haddii cunug la dilay aragna aan la baqin iska aamus yaa lagu qabsan bis yaa ma aha meesha wiilkaas uu ku dhacay Winnipeg waxaa joogay dad aan muslim ahayn oo cadaan ah ayagaa u gurmaday ayagaa qaaday ilaa isbitaal ayaa geeyay anaga maxaa noo diiday anagoo 30 sano joogna weli inaan waxyaabaha yar ee basic aan baran oo qof dhibaataysan aan caawino hadduu CPR u baahan yahay dib haddaan aragna inaan dawladda la shaqeyno ilaa waddanka waan deganahay waa marka aniga anoon ku fogaanaynin in ciidanka lala shaqeeyo ayagana ay shaqadooda qabsadaan ayaan ku talinayaa wahagaag yow baby inagoo ujeedadeenu tahay lafagur aan ku samaynayno dareen dadka Soomaaliyeed qulubtooda inuu galo oo ay dad isku mid ah oo meel dhibaatada uga soo wada horjooda noqdaan waa inaan aad u qodnaa arintan iyada ah dadka intooda badan waxay ka cabanayaan ka saxaafadahaan oo ognahay qofkii geeridu ku dhacday oo la soo booqanayo oo waliba la caawinayo haddana in gadaashiisa laga hadlayo oo wax laga sheegayo cunugiisadan u ahaa iyo reerka kala daadsanaa iyo waxyaabo noocaas oo kale ah waan ogahay inaad tahay qoys sharaf bulshada dhexdeeda ku leh waxaana taa muujinaya sida shacabka Soomaaliyeed ku gurmadeen balse su'aasheedu waxay ku socotaa bal in ay dadka Soomaaliyeed reeriyada iska ridaan oo ay ka xishoodaan wax ka sheegidda qofka geeridu ku timid iyo dhaqanka qoyskiisa arinta ma kula soo diristay haday kula soo diristay maxaad oran lahayd shacabka Soomaaliyeed wallahi maxamed waa runta waaye arintaas iyo arimo badan ayaa ma aragtay ummadda Soomaaliyeed haysta haddii ay naqan lahayd sidaan hore u sheegay caruurta xoogaa dhibka badan ee guryaha joogaan ma aha inaan cid gooni ama reer hadda ku ara waxaan la hadlay qof waxaan ku iri caruurta way dhib badan yihiin
isla markiiba wuxuu igu soo jawaabay adiga haddii kuwaaga dhib badan yihiin waane anigu kuwan way fiican yihiin su-aasha saas maaha caruurta way fiican yihiin waxaa ku jira dad kuwa dhib badan oo u baahan kuwan fiican in laga dheereeyo oo laga qabto annaga as a family ahaan waxyaabo badan way nala soo darseen laakiin waxaa ugu badan oo maaragtay annaga as a family Soomaaliyeed meel bay joogto maaragtay way loo gurmadeen wayna la garab istaageen laakiin waxaan rabnaa in hooyooyinka Soomaaliyeed ama aabayaasha Soomaaliyeed meel walba lagu haysto hebel baa tiim hortan fadhiyay heblaay aroos ay ku maqnay ma jirto hooyo Soomaaliyeed oo cunugeeda inta daayacday in laga dilo ma soo helaysid marka haddii laga sheekayn lahaa iyo haddii la joojin lahaaba ma jirto hooyo Soomaaliyeed inta 9 bil caruur caloosheeda cunug ku haysay soo korisay kindergarten geysay junior geysay high school geysay jaamacad geysay maalinta isla waxa ku taro laga dilay ma jirto macnaa qaf saas oo kale aniga inuu ku jiro community-ga uma leen maayo waxyaabahaasna dhinaca iska dhigno waa waxaan hore u sheegnay anaga 3 sano weli basic waxyaabihii yaryara ayaan la qabsan laanahay isqabqabsiga iyo isxinka badan inta meel iska dhigno waxaan rabnaa maadaama aniga ay arrintan igu cusub tahay mana ka hari doono maanta halkan aan joognaa maalin kale meel kale aan joogi doonaa sida daay u sheegay groupkan hadda ka shaqeynaya dilalka oo community-da waa la shaqeyn doonaa wixii loo baahdo effort waa sameynayna marka waxaan aniga ahaan soo jeedin lahaa waa shakhsiyan waa qaldamaan karaa haddaan qaldaman waa aniga iyo shaydaan haddaan saxsaanahayna waxaan jeclaan lahaa ummadda laga qaato awlaadeena ma xuma way fiican yihiin laakiin kuwa adag ee dhibka badan aan meel iska saarno sida kuwa yaryar ay noogu badbaadaan bilowgii 1990kii ayaan wadamadan qurbaha dadkii ugu horeeyay soo galaan ahayn maxamedow dhibka ugu weyn ee aniga maanta aan dhihi lahaa waxa waaye guryaha waa aniga again guryahan dowladda housing corporate-ka ee aan waqti badan gelinay aniga caawa haddii yaa eeday la dhihi lahaa yaad eedi doontaan la dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa guryaha dowladda waayo guryaha dowladda ma ahan environment fiican ma ahan meel fiican haddii aad u fiiriso school ahaan xataa cunuga markuu Jane Finji ka soo baxo oo Jackson Power baska soo istaago oo dad kale ka soo qaado Falstaff uu istaago oo dad kale uu ka qaado Eaton Way Martin Eaton Way istaago oo dad kale ka qaado Woolner uu istaago oo dad kale ka qaado oo Renimid isugu geeyo meeshaas outcome-ka ka imaanaya aniga aabaan ahay iskuulada waa tagaa waa booqdaa macnaa albaabkaan dhignaa caruurta gudaha ayaga markay gudaha galaan ilaahay unbaa ugu xamaasha ka socdo guryahan dowladda aniga waxaan qabaa intii laga fogaado in laga fogaado caruurteenaan yaryar ee hadda koraysa 3 jirka iyo 4 jirkana in loo raadiyo balaan ka duwan wixii anaga hore noogu soo dhacay ee diyaar in loo ahaado cunuga markaa gacanta ka hayso 3 jirka yahay maasha Allah laakiin waxaa imaanaysa mar uu 22 jir yahay waa asiga soconayo markaas waa inuu ahaadaa meel safe ah oo ka dhan guri dowlad iyo housing iyo iskuulo oo isku wada dhow hal community lagu baabi'iyo inaysan naqanin marka intaasaan yeelaa waxaan ku dari lahaa yo babyo markaan indheeyo guud ahaanba nolosha guud ee shacabka Soomaaliyeed ee reer Toronto hadalhaynta iyo gafafka loo geysanayo qoysaska ay ku timaado geeridu waxa tusaale kuugu noqon kara waxaan indhaha saaray ubad Soomaaliyeed oo maanta dhakhaatiira aniga wiisiteeyay been ma ku sheegayo laakiin ka yimid Jane iyo Finch waliba wada aan aqaano oo xataa tagaasidu ayna dadka ka soo qaadin wiilkaas halkaas ay ku koray waxaan aqaanaa qaar ku koray meelaha ugu wanaagsan magaalada Toronto dadka guryaha leh ay degan yihiin iskuulada dad lacag leh ilmahoodu ay yimaadaan oo balwada iyo dhibaatada iyo jeelka meel xun ka gaaray marka dadka Soomaaliyeed waxaan kula talinaynaa ee barnaamijkan daawanaya in ayna qiimaynin qoyska qof kasta oo Soomaaliyeed wuxuu la jecel yahay cunugiisa inuu noqdo Soomaalida waa taqaan dhakhtar iyo lawyer heerkaas taaganahay balse cunugii dadaalka aad sameeynayay hadduu xumaado xataa anuu ma qabo qofka waalidkii hooyada iyo aabaha in lagu caayo guryaha dawladana tog waliba waxa la yiraahdaa tabartiisu rugmada ma qabo aniga in
lagu aflagaadeeyo qof danta u geysay oo markaa aan ama shaqo fiican ba haysanin oo uu guri ku gato amaba dad badan fikrad ay qabaan ba aan rabin ba inuu mortgage iyo waxyaabo noocaas galo waa hagaag ujeedada aanu barnaamij kalena waxay weeyaan wacyi gelin waaye barnaamij siyaasadeed ma aha yow baby waxa lagaaga soo gurmaday meel walbo adduunka ah waxaanu ku kasbatay markaan fiiriyay muddadii aan ku iqiinay waxaad wadan jirto in kastoo fiicneed inaan barnaamijka keeno koobo yar ay ku qoran tahay walaal afuri waxaad qayb wanaagsan ka ahayd martigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waliba siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee barnaamijyada ciyaaraha ee ururka Today uu qabto ee dalkan Canada lagu qabto ee Somali Week aad waxay dhalinyarada ugu horeysa waxyaabaha iyaga waxa dhawaan geysay dhaqaale ururin Toronto ka sameysay afgooye waqtigii ay ka dhaceen biyuhu ay wabigu ku fatahay inaha iyo inan kale oon hadda xusuusanin baad ku keensatay in guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogan ay ku soo gurmadaan wanaaga inta la eg markaad og tahay inuu ku soo jiiday waxqabadkaaga iyo Soomaalinimadaadii kuwa Soomaalinimada ka fog maxaad oran lahayd wallahi aniga mar walba waxaan dhahaa bisha Ramadaan oo kale daadadkii hadii aan lahayd qardho hadii aan lahayd gado hadii aan lahayd baladweyne afgooye ummadda Soomaaliyeed guud ahaan wadankii hooyo waa dad iska dhibaataysan mar walba oo aan shaqeynayno ama aan dad u gurmanayno intaasaan waxaan yiraahdaa Soomaalida aan u gurmano waxay ku fiicnaaleed waliba qof walba Soomaali oo qurbaha joogo inuu qof kale u gurmado waxaan uga bixi lahayn markaas dhibkan badan iyo daadadkan tirada badan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogto bisha Ramadaanka oo kale aniga waan jeclahay in dadka oo dhan caag inta qaataan qof ku yaqaan afuriyo si culayska maaragtay uu u yaraado anaga alxamdulillah ilaahay ayaana siiyay chance kan opportunity kan kuwa xagga joogana ilaahay ayaa siiyay marka wax difference ma jiro ilaahay agtiisa waa laga wada siman yahay in la isku gurmado in la isku maciino mar kale dadkii noo gurmaday hadii ay ahaan laayeen masaajid Bilal Winnipeg hadii aan laayeen Somali community Winnipeg hadii ay ahaan laayeen dadkii reer Toronto ma kala saaranayo sida aan sheegtay waxay ahaayeen dad isla socdo oo dhan kasta socdo magaaladan runtii isma aanan lahayn dad saas oo kale ku leedahay laakiin waxaa noo cadaatay wanaageena inuu na gaarsiiyay inaan kasbano ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto iyo dhammaan reer Toronto oo aan qafna ka maqnayn inay noo soo gurmadaan east west south iyo north waagad iyo baby waxaan gabagabada barnaamijka soo jeedin lahaa in ay Soomaalidu isku mashquuliso iyagoo la kaashanaya wasiirkeena Axmed Xuseen iyo waliba xildhibaan Faysal iyo inta la midka aba in dawladda Canada in kore ay samayso oo dawladdu ay samayso bal mashruuc kharash fara badan ku baxayo oo lagu baarayo sababaha keenaya ubadka Soomaaliyeed ama jidka toosanba inay ka leexdaan ama iyagoo wanaagsan ba ay geeri naxdin leh oo dhimasho iyo ku timaado dadka Soomaaliyeed ee reer Canada maxaad oran lahayd in arrinta ka qayb qaataan والله ورنتا وزيرك كل مدري تعسيدنا وإصلاح ذني أسجى فيصل حدنا وحربا إن عن حرير توس على السماء وسيد على الشيك وحي عن كقبن كرنو ما دام وزيرك هاي وزيرك وأنا نوع أقوم بدي عندنا كاس الدولة يوحي لقبن كرو تاس وحربنا مركي عن وزيرك هنا أرجنو إن عن كلا هذا الناس حلدوان فيصل ومدة الصومالية مركز تو سيدا غير وشيء أما حدنا الشيء دونه waxaan dhihi lahaa waxaan nahay dad fiican waxaan nahay dad nadiif ah waxyaabaha yararka jira aan iska saarno aan isku wada duubano aan meel ka wada istaagno dhibkan joogtada ah ee caruurta 20 jirka ah maalin kasto lagu beegsado waxa gabagabada barnaamijka su'aasheeda ugu dambeysay yow baby ma jira wax digniina oo shacabka Soomaaliyeed أجعشها إن تجارسي سو كوجهن دقائق عنقة إيه وحيابها أو كهولية هاي واحد ليه كرتما أنت المها حلقة كفيرية مجرى شعب الصومالي ده وده جيسو والله عروض تمركز وينادان تيجي ما شاء الله وحياة بدن وباين ولا كفيرية أنا شخصيا وحياة بدن كفير جري ما إنه قف كحية معها لكن كل هو إنه عبليه
wax kastoo dhaqdhaqaaq guriga ka socdana inuu la socdo mar walba waxaan soo jeedin lahaa in caruurta markay guriga ka baxaan iyo markay soo galayaan labadaba mas-uuliyad xoog badan la iska saaro weliba habeenkii aniga markay soo galayaan guriga qofka aabbaha inuu ka furo cunugaas oo xaaladiisa uu la socdo khatarteeda ay leedahay ogaada yaan la yasin in jas cunuga qof kale baabka ka furo oo guriga iska soo galo khatarteeda ay leedahay khataro badanna way ka dhaceen digsan dhibaatooyin badan oo askarta markay guryaha soo weerartay waxyaabo aan la ogeyn loogu yimidna way dhaceen marka waxaan soo jeedin lahaa waalidiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in caruurta ay u foojignaadaan kana foojignaadaan haddii Ilaahay yiraahdo وهي gabagabada barnaamijka dadkii faraha badnaa ee ka qayb qaatay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid wiilkaaga Maxamed Yare ee dibad iyo gudaba kaaga soo gurmaday maxaad oran lahayd walaalahay dibadda Ras Kamboni Ras Aser ilaa iyo Europe ilaa iyo Canada Africa Asia meel kasto intiina la soo xiriirtay waxaan dhihi lahaa walaalo jiro waa idin kaga mahad celinaya I wish inaan qof idin arki lahaa waliba walaalahayga reer Toronto oo ka qayb qaatay haddii ay naqan lahayd aaskiisa haddii ay naqan lahayd keeritaankiisa iyo walaalahay reer Winnipeg oo ayagana sidaas oo kale soo dhoofintiisa iyo wax walba oo maanta Maxamed u baahnaa ay ayaga la garab taagnaayeen Soomaalinimada baa Soomaali ku wadanahay caawa u maleyn maayo intii dad ee socday inay qabiil ahaan igu socdeen waxaan ku wada soconay Soomaalinimo waxaan ku wada soconay in ummadaas masaakiinta ay dhibaataysan aan wax u tarno markay noo baahan yihiin markuu daadad ku dhaco markuu dhib gaaro intaas ayaa anagana caawa aan ku helnay raxmadiina marka waxaan dhihi lahaa walaalahay Soomaaliyeed anoo kala saaraynin waa jeclaan lahaa inaan caawa hal u sheego laakiin mar raba inaan qofka tago anoo dadkaas kala saaraynin waxaan dhihi lahaa walaalahay Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan waad ku mahadsantihiin sidii aad maaragtay noo garab istaagteen marxaladii adkeyd ee aan ku jirnay wiilkayga Maxamed Yuusufna qabrigiisa Allah u waasiciyo mahadsantihiin آمين ثمري إيمان يا كلنا صاحب وأجاك داود يالي صاحب يالب وحن سوق إن جبدي برنامج كتضباط كي تورنتو هي تلفزيون كعالمي هي صومالي كيبل وحيدين كجا إيمان هي استوديو هي مجال ذا تورنتو دي هذه من كون نقص بيرتين برنامج كوحو قصاب سنة ورئيسي آن لي شيء مدن يوسف أبيكر علي أو لو يقان يو بيبي أو كمد dadka Soomaaliyeed ee qurba joog ah dalkani walibana meel wanaagsan kaga jira guud ahaanba u gargaaridda shacabka Soomaaliyeed haddii ay noqon lahaayeen kuwa degan dalkani iyo waliba kuwa iyagu jira dalkii hooye intaba waxaan ka waraystay dil loo geystay wiilkiisii Maxamed Yuusuf Abikar Ali oo dhawaan uu lagu dilay magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ee dalkani Canada oo uu shaqo ka raadsaday laba asbuuc ka hor ayaa lagu aasay magaalada Toronto waxaanu leenahay samiriye iimaan guud ahaanba barnaamijka waxa idiin soo saaray anigoo Maxamed Cabdullaahi Xasan barnaamijkan barnaamij la mid ah intaanu isugu iman doonana daawadayaashan aad ka u jecelahayo intaas iyo nabad geliyo